barasaabka gobolka Togdheer ayaa kaalmo lacag u qaybiyay ilaa 330 qoys oo danyar ah oo lagu soo caawiyay ololaha kaalme kulankan oo ka dhacay xarunta maamulka gobolka Togdheer ayuu ka hadlay madaxa ololahan Cabdimaalik Sheekh Muuse Caldo isagoo sharaxay ololahan iyo waxyaabaha uu xoog saaro. waa munaasabad lacag guddoonsiina haddaan nahay ololaha kaalme kuwan oo ka shaqeeya inuu istuso dadka danyarta iyo inta ladan oo ku baaqa in la soo kaalmeeyo isagoo adeegsanaya warbaahinta hay'ad khayriye ma nihiin waxaan nahay kaliya warbaahin dadka danyarta tusta dadka hebel waa kan soo kaalmeeya telefoon numberkiisaan sheegnaa waana la soo kaalmeeya marka dad aan hore u soo bandhignay iyo dad kale ayaa nala ku soo hagaajiyay lacageeyow ayiri dad baahan siiya marka halkan maanta waxaynu kaga farxinaynaa hadiyado aynu siinaynaa 330 qoys ama 330 xaaladood mid kastaaba wuxuu qaadanayaa $200 $200 waxa isku noqonaysaa $6,600 arrinka muxuu ahaa soo jiidashada leh ee ku jira maanta arrinkan waxa weeye dadka lacagta bixinaya waxa weeye dad aan hore u kaalmeynay ayaa ku jira oo bixinaya mid kastaaba waa 3 qof oo mid kastaaba $200 bixinaya waa dad hore aan u kaalmeynay ladnaaday dhaqaale helay kadibna muxuu ahaa kaalmeeyay aan ku boorinay waxaan ku niri dhaqaale heshay soo kaalmeey muxuu ahaa dadka wari sidaadii dadka ugu badan ee nagu soo hagaajiya deeqaha lacagaha ah waa dadka dabadda waliba dadka dabaddana aan muxuu ahaa aan u sii dhaadhacay waxa weeye waxay u badan yihiin 80% aan idhaahdee waa dumar qaar ka mid ah dadka la caawiyay iyo waliba mid ka mid ah hooyooyinka dhawaan lagu caawiyay ololahan oo iyadu maanta ka qayb qaadatay kaalmeynta dadkan jilicsan ayaa ka dareen celiyay kaalmadani anigoo haysta caruur yar oo agoon oo 8 meel yar oo sandaqada oo qol yar baan waxaan ku iibinayaa dhuxushaan waan xirxirayay markuu yimi uu isawiray warbaahinta markuu geliyayna lacag badan baan helay lacagtii markaan helay saaka markuu ii sheegay shalay markuu ii sheegay waxaan ku yidhi waxbaan ku darsanayaa aniguna lacagna badanna waan helay waxbaan ku darsanayaa anina walaalahayga islaamka oo baahan lahayn cid ku kaalmayso kaalmada inta leeg bedelay walaalka ilaahay ha ka abaal mariyo ninkii kaalmeeyay oo dhan Allah ka abaal mariyo anina waxaan ku talagalayaa insha Allah intaan noolahay wixii soo galay inaan qofkii iga liita aan ku kaalmayo inuu ilaahay horta kuwii soo diray ilaahay fadli ka sii dawladda iyo deegaanka iyo dadnimadaba Allah idinku cisay Allah idinka ajrisay maanta faraxsan oo ciida Allah ina barakeeyo abwaan hore walawal iyo abwaanad kaltuun ayaa dareen qeyrale ku qaabilay ololahan kuna bogaadiyay wariye Cabdimaalik Sheekh Muuse Caldo iyo cid kasta oo ku hawlan barasaabka Togdheer Maxamed Ibraahim Aadan Qabyatire ayaa isna dhankiisa aad u bogaadiyay wariye Cabdimaalik iyo ololahan kaalme kuwan isagoo ballan qaaday inuu soo dhaweynayo oo la shaqeynayo maadaama ololahan yahay wax cusub iyo fikir wanaagsan waxaan mar ugu horeyn u mahadnaqayaa Cabdimaalik Caldo oo aan Facebook ku saaxiibnay halkan wariye ka tirsan gobolka ah oo arinta aan ismaan lahayn markaan ku arkay baraha intan dhalaysa laakiin aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa tacab iyo tamar buu galiyay midhaheedina waan arkaynaa maanta aad baan ugu mahadnaqayaa waxaan kaloo mahadnaqayaa hablaha dabadda ee qurba jooga hadii jeer marka naxariistii mala dumarkii ku dambeysay hablaha gartay inay ciidsiiyaan dadkooda danyarta waana markii ugu horeysay taariikhda warbaahin ka dhalatay inay noqoto hay'ad samafal waa taariikh way noqonaysaa Cabdimaalikna arintaas iyo idin kabade waxay idin noqonaysaa taariikh way idin noqonaysaa dhinaca kalena waxa barasaabka Togdheer agabkii iyo dharkii ciidka ugu qaybiyay Hotel City Plaza ee magaalada Burco hablaha agoomaha ee dugsiga Tabantaabo oo gacanta ku haya ururka Taawa waxaana sharaxaad dheer ka bixisay dugsigan iyo duruufaha hablaha agoomaha Marwe Faadimo Muuse Cumar oo ah gudoomiyaha ururka Taawa ahna maamulaha dugsiga Tabantaabo waxaan maanta aan ugu faraxsanahay oo aniga iiga duwan leeyahay hore in iminkaas ciidan ay ciidsiiyeen dadkaasi bulshada nagalaga gobolka qaar ka mid runtii ay ciidsiiyeen taasoo runtii markii hore dhibaato nagu ahayd oo aan la xiriiri jirnay hadda jeer ama maxaa ku dhacday ay dadka dawladaha la xiriiri jirnay nagala qayb gashayba waan aad baan ugu hambalyeynaya aad baan runtii u ducaynaya waxaan leeyahay way soconaysaa baahida carruurtani maalin walba runtii way jiraysaa oo qaar cusub ay imanaya abwaan hadraawi Dr. Xasan Sheekh Cali Warsame Marwe Shacri Qabile iyo xubno kale oo isugu jiray ganacsato iyo madax dhaqameed iyo dhalinyaro ayaa halkaasi ka soo jeediyay ereyo u badnaa duco iyo dardaaran iyagoo bulshada ugu baaqay inay ka qayb qaataan gurmadka loogu jiro waxbarashada iyo daryeelka hablaha agoomaha ah hal yiraahdo ubadka tabaalaysa agoonku waa inuu marka agoon
runtii waa inay naxdin leh laakiin waa haddii la aqbalee waxaa fiican in la yidhaahdo ubadka tabaalaysan waa waxyaabihii alla subxaanahu wa tacaala uu tilmaamay in loo tartamo وفي ذلك فليتنافس المتنافسون البابada jannada meelaha ugu waasicsan ee laga galayo oo dadka masaakiinta iyo dadka agoonta iyo dadka dhiban in la dhinac istaago la qabto waxaan dareemay farxad aad iyo aad u badan annagoo waalidkay u ducaynayna gabagabadiina barasaabka togdheer ayaa dharkii ciidka u qaybiyey hablaha agoomaha isagoo halkaasna ka cabiray dareenka uu dugsigani ku leeyahay isaga hawshan ay hablahaasi ayaan hawl yar maaha in aynu isgarab taagno gobol ahaan degmo ahaan inaynu gaar u eegno ayaa loo baahan yahay anna waan idiin ballan qaadayaa wanaagga aad samayseen iyo ciidda habliha ka farxiseenna jasaaka allah khayr anigu waan la ciidayaa maalinta insha allah biidnillah mustafa cismaan magaalo telefishinka qaranka somalilan hotel city plaza magaalada burco